habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin dugsiyo quraan oo si xun dadka ula dhaqma waxaanu u socdaalnay waqooyiga Nigeria halkaasi oo dhibaato baahsan ay ka jirto qodobada kale ee ku jira caawiya caalamkana waxa kamid ah hal qof ayaa la xiray waxaana booliiska Mareykanku ay heleen waxyaabo badan oo laga shakiyay oo loo diray siyaasiyiinta ugu caansan ee ka soo horjeeda madaxweyne Trump iyadoo xal loo raadinayo qaaca iyo wasaqda hawada lagu sii daayo ayaa Nairobi waxa laga bilaabay baabuur tagaasi ah oo ku shaqeynaya electriga toddobaadkan iyo Clickna waxaanu idin haynaa robotkan yar ee duulaya oo qaadi kara 40 jeer culayskiisa alaab ka badan kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka malaayiin caruur ah oo ku nool Nigeria iyo qaybo kale oo kamid ah galbeedka Afrika ayaa loo diraa dugsiyo quraan ah laakiin qaar badan oo kamid ah ayaa siyaabo xun loola dhaqmaa caruurtan oo ay qaarkood da'doodu yar tahay ilaa 4 sano jir ay tahay ayaanan marar badan helin meel ay ciirsadaan ma jirto tiro sugan oo lagu qiyaasi karo ardayda dugsiyada noocan dhigta dalka Nigeria laakiin waxa lagu sheegaa ilaa 8 milyan arrinkan ayaa si weyn ugu faafay dhinaca waqooyiga ee wadanka Nigeria dadaalo loogu jiro in dugsiyadan lagu dhex daro oo qayb ay ka noqdaan nidaamka waxbarashada ee caadiga ah ee dalkana kama muuqdaan natiijooyin yididiila leh wariyaha BBC-da Isxaaq Khalid ayaa booqday gobolka Gombe si uu u eego xaaladda halkaasi Maxamed Xaraare ayaa faafinaya wuxuu la halgamayaa nolosha wiilkan 13 jirka ah ee ku nool waqooyiga Nigeria waxa la geeyay dugsi quraan lagu magacaabo Tasangaya si uu wax uga barto laakiin intan ayuu ka faa'iiday in labada gacan la jaro kadib markii uu mid kamid ah macallimiintiisa ku eedeeyay xasadnimo wuxuu noo sheegay in macallinku uu labadiisa gacmood isku xidhay kadibna uu qorraxda kaga tagay muddo saacado ah si uu u qirto inuu xaday telefoonka gacanta kaas oo uu dafiray gacmaha ayuu nabarro waaweyn ku yeeshay muusan helin daaweyn isbitaal ilaa markii dambe ay toos u caabuqeen wiilkan waxaa badbaadiyay oo cisbitaal u qaaday koox xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqday ee shaqaalaha bulshada dhaqaatiirtu waxay go'aamiyeen in gacmaha la jaro mar kasta oo aan arko qof gacmihiisa ku shaqaysanaya waxaan istiraahdaa haddii aan gacmo lahaan lahaa soo qoyskayga iyo dad kale ma caawiyeen raashin ma cuni karo keligay ma mayran karo marka aan musqusha tegayo waa in qof uu i caawiyaa oo uu ila socda aabihii wuxuu noo sheegay in saboolnimada ay ku riixday inuu ilmihiisa u diray dugsiga quraanka sababtoo ah ma awoodin khidmadda lagu bixiyo dugsiyada kale dhacdadan wixii ka dambeeyay dugsiga wuu ka saaray saddexdiisa caruur ee kale markii aan u diriyay wiilkayga dugsigan kumaanan fakarin in noloshiisu sidan noqon karto aad ayaan uga shallaayaa inaan u diray macallinka dugsi quraankan iminka waa la xiray wuxuu sugayaa maxkamad nooma suurtagelin inaan la hadalno xaaladda wiilkan waa mid aad u xun laakiin maaha mid isaga u gooni ah lama hayo tiro qaran oo dhab ah laakiin gobolka Gombe oo kaliya dhaqdhaqaaqayaashu waxa ay sheegayaan inay diiwaan geliyeen in ka badan 160 xaaladood oo aad u halis badan tan iyo bilowgii sanadkan ma haystaan cunto ay cunaan ma haystaan meelo ay seexdaan waxa lagu hayaa dibadda marka ay sameeyaan dembiye yaryar macallimiintu waxay isticmaalaan habdhaqan waxashnimo ah carruurta ayay xidhxidhaan oo garaacaan oo ku xabsiyaan qolal cunnadana way ka jaraan waa dhaqan guun ah oo saboolnimada ba'an iyo dib u dhaca baahsan ee laamaha waxbarashadu sabab u yihiin dalka Nigeria waa dalka ay ku nool yihiin ardayda ugu badan ee dugsiyada ka sagsaaga dunida oo dhan waxaa lagu qiyaasaa ilaa 10 milyan oo arday sida ay sheegtay UNICEF carruurta ku nool waqooyiga Nigeria ee inta badan ka soo jeeda qoysaska saboolka ah waxaa loo diraa dugsiyada quraanka sida dugsigan qaar kamida waxay 100 kiiloomitir ka fog yihiin waalidkood waxa la xafidsiiyaa quraanka dugsiyada caynkana halkan waa kuwa aad ugu badan qaar kamida macallimiinta wax ka dhigta dugsiyadan waxa ay sheegayaan in eedaynta duuduubka ee loo jeedinayo dugsiyada ay tahay arrin cadaaladda ka fog waalidiinta carruurtooda ayay halkan keenaan waxaanu barnaa quraanka iyo habdhaqanka wanaagsan iyo sida loo ixtiraamo waalidka iyo dadka kaleba
mas-uuliyiinta dalka Nigeria ayaa isku dayaya inay isku xiraan dugsiyada qur'aanka iyo iskuulada caadiga ee waxbarashada iyadoo loo aasaasay 10 dugsi oo noocan oo kala ah taasoo carruurta lagu siiyay casharro islaami ah kuwa cilmiga maadiga iyo tababaro xirfadeed iyadoo ay wali shaqeynayaan dugsiyada caadiga ah iskuulada sidan loo qaabeeyo wali waa kuwa aad u liita tusaale ahaan gobolka Gombe waxaa lagu qiyaasay 297,000 ardayda dugsi qur'aanka tagta ilaa 4,500 oo kamid ah ayaa dugsiyada asaasiga taga sida ay saraakiishu sheegeen inkastoo ay dadaaladu socdaan haddana carruurta uu ka mid ka yahay 13 jirkan gacmaha beelay nidaamka dugsi qur'aanku argagax joogta ayuu ku reebay iyadoo iminka dib u habeynta lagu sameynayo laamaha waxbarashada ee Nigeria ay loodayaan arday kale oo fara badan ayaa halis ku jirta markana dalka Mareykanka ninka la xiriirinayay qaraxyadii loo diray dad ka soo horjeeda Donald Trump ayaa maanta lagu xiray wadanka Mareykanka ninkan oo 56 jir ah ayaa maanta lagu xiray Miami Florida kadib markii booliisku ay isticmaaleen hidda-sidihiisa DNA-ga qarax kale ayaa maanta isna laga helay deegaankaasi mid kalena waxa laga helay magaalada New York waxaana muuqaaladani ay yihiin kuwii ugu dambeeyay ee booliiska meel u dhow halka ninka laga shakisan yahay lagu qabtay gaadhi ayaana la sheegayaa in la jiiday dambibaarayaasha ayaa shalay bilaabay in ay xoogga saaraan wax aanay baaritaanka xarunta waraaqahaasi loo soo dirayo ay ku sheegeen haddaba ciidamada sirdoonka ee wadankaasi Mareykanka ayaa waxa ay baaritaankooda ay ka bilaabeen Florida waana kuwan goobaha loo malaynayo in ay dhibaatadu ay ka taagan tahay oo inta badan laga helay aalado ay ku jiraan baa la yiri aaladahaasi oo magaalooyinka New York iyo Washington iyadoo mid ka mid ahna loo diray dhinaca magaalada Los Angeles laakiin arrinkan waxa sidiisaba uu bilowday isniintii markii baqshad noocan oo kala laga helay guriga bilyaneerka George Soros oo aad u maalgeliya xisbiga dimuqraadiga tan iyo markii arrinkaasi la helayna aalado kale oo badan ayaa loo diray dad caana oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee wadanka Mareykanka Barack Obama iyo Hillary Clinton iyo waliba madaxweyne ku-xigeenkii Joe Biden iyo abukaatihii guud ee hore Eric Holder waxaana sidoo kale shalay mid la mid ah bashqadan loo diray oo laga helay maqaayad ku taala New York oo uu leeyahay jilaaga Robert De Niro waad maqasheen labada dhinacba dimuqraadiyiinta iyo jamhuurigaba waxay sheegeen inay tahay inay Ameerika yeelato wadahadalo siyaasadeed oo ka duwan sida tan run ahaantii waxaan u jeednaa madaxweyne Trump iyo siyaasiyiinta dhigiisa ah oo iska wada eedaynta hadallada kulkulul ee la isku weedaarsanayo doorashooyinka ka hor waxaa jira dareen rasmi ah in doorashooyinka ay muhiim yihiin maxaa yeelay waxay ka dhigan yihiin ciddii ka talin lahayd aqalka Koongreeska hadda Donald Trump iyo xisbigiisa jamhuuriga ah ayaa ka talaya aqalka iyagoo haysta aqlabiyadda golaha wakiilada iyo golaha guurtidaba haddii ay tahay intaasi wax iska bedasho siyaasaddiisa in la ansixiyo way ku adkaan doontaa waana sababta aan u arkayno isticmaalka luuqadda kulul mararka qaar laakiin run ahaantii hadda waxaa la dareemayaa in la isku dayayo in la yareeyo hadalladaasi laakiin xaqiiqdu waxay tahay maadaama ay doorashooyinka soo dhowaanayaan toddobaadka soo socda hadallada kulkulul waa ay soo noqnoqon doonaan bal haddii aynu ka gudubno wararkaasi ku saabsan Mareykanka markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa ciidamada Jordan iyo Israa'iil ayaa ka qayb galay howlaha lagu baadigoobayo dad badbaaday kadib markii 20 qof ay ku dhinteen daadad soo rogmaday meel u dhow badda Dead Sea badiba dadka dhintay waxay ahaayeen caruur arday ah oo reer Jordan ah oo safar ku jirtay dad ka badan 30 qof ayaa la badbaadiyay Israa'iiliyiinta ayaa sheegay in ay hawsha joojiyeen habeennimadii kadib markii cimilada ay sii xumaatay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka ee OIC ayaa soo gaaray maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka hor maalin kulan ay wasiiradu ay ku leeyihiin oo berito halkaasi ka bilaabanaya waxa la filayaa in ay ka wada hadli doonaan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya wafdiga maanta gaaray Muqdisho waxa sidoo kale kamid ah dhinacyada ku kala qaybsan siyaasadda khaliijka saynisyahano ayaa sheegay in daraasad lagu sameeyay cusub antibiotica ay muujinayso in ay suurtagal tahay in ay wax ka tarto bakteeriyada iska adkaysiga ee daawada iska adkaysa bini'aadamka
daroogadan cusub oo loo bixiyey Cefiderocol ayaa waxaa lagu tijaabiyey bukaan qaba caabuqa kaadida 15 wadan. Daawadan ayaa gaaraysa unugyada bakteeriyada oo dhammaanba dilaysa. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku cadaadinaya dalka Sacuudiga in ay sheegaan ciddii bixisay amarkii lagu dilay wariyihii Jamal Khashoggi iyo halka meydkiisa la geeyay. Madaxweyne Erdogan waxa kale oo uu sheegay in madaxa xeer ilaalinta Sacuudiga uu maalinta Axadda u iman doono Istanbul si uu kiiska ugala xaajoodo dhigiisa Turkiga. dhinaca kalena wiilkii curadka saxafiga la dilay oo loo diidanaa in Sacuudiga uu ka baxo ayaa gaaray wadanka Mareykanka. Mr. Khashoggi ayaa la waayay in ku dhow hadda bil kadib markii uu booqday qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. mar walba waxaad nagala socon kartaan bogayaga BBC Somali Facebook. fadlan waxaad raadisaa BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraad ah iyo waliba wararka ugu waaweyn. si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamkaba nagala soco BBC Somali Twitter iyo waliba BBC Somali Instagram. qaybta dambe ee barnaamijka ayaanu isku soo laaban doonaa daawadayaal ee qadar yar oo ilbriqsiya kadib waan isku soo noqon doonaa. weli waxaad naga daawanaysaan BBC Somali televisionka. waxaa sidoo kale aad barnaamijka aad ka heli kartaa bogayaga bbc.com/somali. waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybta dambe iyada oo xal loo raadinayo qaaca iyo wasaqda hawada lagu sii daayo. Nairobi waxay bilowday baabuur tagaasi ah oo ku shaqaynaya electriga oo ay leeyihiin lacag fara badan ayay ku badbaadinayaan dadka tagaasida ah ee ka howlgalaya magaalada Nairobi. qadar nasiinaha kadib dib ayaynu isugu soo noqon doonaa. weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka. waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale bal aan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn caawa. dugsiyo quraan oo si xun dadka ula dhaqma. waxaanu u socdaalnay waqooyiga Nigeria halkaasi oo dhibaato baahsan ay ka jirto. hal qof ayaa la xiray waxaana ciidamada booliiska Mareykanku ay sheegeen inay heleen waxyaabo badan oo looga shakiyay in loo diray siyaasiyiinta ugu caansan ee ka soo horjeeda madaxweynaha wadanka Trump. dowladda UK ayaa raaligelin siisay dadka sida khaldan loogu sheegay in ay DNA ay ku cadeeyaan xaq ay u leeyihiin in dalka ay deganaadaan. wasiirka UK mas'uulka ka ah socdaalka Sajid Javid ayaa waxa uu sheegay qaar ka mid ah qaraabada dad u dhashay Afghanistan oo dowladda UK u shaqaynayay in iyaga iyo dadka Gargaska la yiraahdo ay ka mid ahaayeen 400 oo qof oo dhawaan ay saameysay. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa noo faahfaahinaya. waxa uu ku dhashay kuna koray Britain xitaa baasaboorka UK ayuu haystaa balse Andrew Tanis aabihii waxaa laga waday hooyadii oo Vietnam u dhalatay kadib markii uu diiday caddayn hidde-side inuu wiilkiisii dhalay ah siiyo wasaaradda arrimaha gudaha oo si qalad u weydiisatay. Andrew durbaba wuxuu noqday qof aan dal lahayn. ma garanaysid halka aad ka tirsan tahay dhabtii way i welwelisay oo i wareerisay. waraaqo boqolaal oo rasmi ah ayaa 3 sano u dambeeyay la diray iyagoo aan sharci ahayn oo lagu weydiisanayo in waalidnimadooda ku caddeeyaan hidde-side. wejigabax kale ayay ku tahay UK. 10 sano ka hor halgamayaasha qurqa ayaa ku guulaystay in ay UK joogi karaan. qoysaskooda ayaa lagu amray inay soo gudbiyaan caddaymo hidde-side oo ah in ay halkan sharci ku joogaan. khamiistii raaligelinta dowladda UK si rasmi ah looma aqbal. cidna ma aha in la weydiiyo caddaymo hidde-side loomana ciqaabi karo ciddii aanan bixin. gaar ahaan waxaan raaligelin siinayaa dadka Qurqas iyo Afghanistan ee ay saamaysay. baarlamaanka UK 4 jeer ayaa loo sheegay inaan caddayn hidde-side looga baahnayn xaaladaha socdaalka. taasina run ma ahayn. turjumaanada Afghanistan ee ciidamada Britain la shaqaynayay ayaa loo ogolaaday in iyaga iyo xubnaha qoysaskooda ay joogi karaan UK ogolaashana ay uga baahnayn mas'uuliyiinta. shalay dhaleecayn degdeg ah ayay ahayd. dhibanayaashii ugu horreeyay xadgudubkan waa Gurkhas iyo Afghanistan. waxaa ku jira rag iyo dumar noloshooda khatar u geliyey in dalkan ammaan ahaado. waxa maamulka hoose ka dhaqangeliyeen wasaaradaha gudaha ayaa tan ogolaatay. waana heerkee
and at what level. doodan waxay xusuusin u tahay fadeexadii dhowaan ee Windrush taasi oo soo galootay Britain deganaa nus qarni iyo wax ka badan muran la geliyay sharciga ay dalka ku joogi karaan loona diiday xaq ay u leeyihiin deganaanshaha dalka. shirkad cusub oo tagaasida ah ayaa Kenya u ballan qaadaysa faa'iido darawalladu inay helayaan iyagoo rajaynaya in ay ka caawiso yareynta qaaca iyo wasaqda hawada lagu sii daayo. shirkadda la yiraahdo Ekront oo Finnish ah ayaa waxa ay ka bilaabaysaa magaalada Nairobi tagaasidii ugu horeeyay ee koronto ku shaqeeya xilli qiimaha shidaalka uu sare u sii kacayo. dowladda Kenya waxa ay ku qiyaastay in 14,000 oo Kenyan sanadkii ay u dhintaan wasaqda hawada. Suhayba Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa. meel Akson ayaa si qunyar socod ah u soo gaaray rugta laga kaari ka qaato ee suuqa weyn ee laga dukaamaysto ee Two Rivers ee magaalada Nairobi. gaarigan ku shaqeeya korontadana ma lahan wax matoor ah, sidaa darteed ma jiro guux iyo xiin intaba. kahor inta uusan bilaabin shaqo maalmeedkiisa waxa uu kaarikaynayaa gaariga. ninkan waxa uu horay u ahaa darawal wada gaadiidka laga dalbado qadka internetka. waxa uu hadda sheegayaa in xaqiiqda ah in uu hadda ka maarmo shidaalka ay taas wax weyn uga dhigan tahay dakhligiisa. faa'iidada koobaad ayaa ah in aan ka maarmay shidaalka. maalintii waxaan celcelis ahaan shidaalka ku iibsan jiray $20. marka aad ku dhufato 365 maalmood ee uu sanadku ka kooban yahay waxay noqonaysaa $7,000. hadda lacagtaasi meel ayaan dhigan karaa oo waxaan ku horumarin karaa noloshayda. daraasad madax bannaan oo la sameeyey ayaa lagu sheegay in saxmadda baabuurta ee Nairobi ay tahay tan ugu daran adduunka. xilliyada rawaxaadda ama shaqo tagga darawallada waxa ay dhaqaaq joogsi ku jiraan in ka badan inta ay baabuurka kaxaynayaan saxmadda awgeed. kadib korarkii canshuurta oo sare u qaaday qiimaha shidaalka ayaa waxay darawallo badan dareemayaan in wax kaxaynta baabuurta ay noqotay mid aad qaali u ah. ciriiriga Nairobi ka jira ayaa si weyn uga qayb qaata wasaqowga hawada. shirkadda dalka Finland laga leeyahay ee keenta baabuurtan cusub ayaa waxa ay sheegaysaa in ay yareyn doonaan wasaqowga hawada ee Nairobi. sida aad arkayso gawaaridan ma lahan dhuunta qiiqa, sidaa daraaddeed wax wasaqa ma lahan. taasi waa wax u wanaagsan magaalo sida Nairobi oo kale ah halkaasi oo arrimaha wasaqowga hawada ka jiraan. hadda waxa ay ku jiraan wajigii tijaabada, balse waxa la rajaynayaa in boqolaal taksi oo noocan ah ay wadada soo kori doonaan dhammaadka sanadkan. marka 2021 la gaarana tirada waxa ay noqon doontaa kumanaan. hase yeeshee in gaari cusub la keeno waa hal arrin, in dadka Kenyaanka lagu qanciyo isticmaalkoodana waa arrin kale. bal markana haddii aynu eegno wararka ciyaaraha ee caawa dhinaca horyaalka Ingiriiska, dabayaaqada toddobaadkan Liverpool kaalinta labaad ayay ku jirtaa, Cardiffna kaalinta 17aad ayay ku jirtaa. taageerayaashu waxay eegayaan inuu maamule Jurgen Klopp uu ciyaarsiinayo Fabinho oo qayb libaax leh ka qaatay markii ay ku garaaceen 4-0 kooxda Red Star Belgrade. laakiin 22 daqiiqo oo kaliya ayuu ciyaaray horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan. ciyaaraha kale Leicesterna waxa ay marti gelinaysaa West Ham, Newcastlena waxay u socdaalaysaa Southampton. guddiga caalamiga ah ee FIFA waxay joojiyeen in ay kala qaybiyaan ciyaaraha Yurub ee UEFA. iminka madaxweyne Gianni Infantino waxa uu sheegay in FIFA ay sameynayso guddi eegta qorshihiisa naadi cusub oo caalamka ah iyo kooxaha qaranka. ururka kubadda cagta ee UEFA ayaa ku hanjabay inay maanta ka baxayaan kulankii FIFA ee ka socday magaalada Kigali ee Rwanda iyagoo oo diidan qorshahan. guddiga wafdida ee UEFA ayaa ka carooday cadaadis lagu saaraya inay taageeraan qorshahan iyadoo oo aan loo caddayn sida ay u saameynayso taariikhaha xilli ciyaareedka iyo howlaha kale. kumanaan kaneeco oo hiddasadahooda wax laga bedelay ayaa lagu sii daayay tuulo ku taala dalka Burkina Faso. waa qayb ka mid ah mashruuc lagu baabi'inayo waxyaabaha keena malaariyada. waa tahay daawadayaal waan ka xunnahay sawiradaasi waxay ahaayeen kuwo qaldan. aan ku celinay kumanaan kaneeco oo hiddasadahoodu wax laga bedelay ayaa lagu sii daayay tuulo ku taala waddanka Burkina Faso. waa qayb ka mid ah mashruucyo lagu baabi'inayo waxyaabaha keena malaariyada. waana markii ugu horeysay ee kaneecooyin sidan ah oo hiddasadahooda wax laga bedelay lagu sii daayo dal Afrika ku yaala. Aisha Afrax ayaa ka waramaysa.
tuuladan afrika ku taalo waa tuulo taariikh dhigaysa waxaan fasaxaynaa kaneecada markaan ku kalsoonaanno farsamada kumanaan kaneeco oo hiddasidahooda wax laga beddelay ayaa halkan lagu sii daayey si ay u baabi'iyaan kaneecooyinka cudurka malaariyada faafiya waxaan ku dhownahay heerkii ugu dambeeyey mashruucan taasi oo ah soo saaridii ugu horraysay hidisidaha wax laga beddelay ee kaneecada afrika inkastoo ay kaneecooyinkan joojinaynin cudurka waxay macno u yeeshay in cilmi-baarayaasha ay soo saareen cayayaan ka hortegaya dhalmada kaneecada waxaan adeegsanaynaa farsamo la yidhaahdo farsamada hidisidaha oo noo oggolaanaysa inaan baahinno wax ka beddelidda hidisidaha kaneecada oo dhan cilmi-baarayaasha ayaa mar hore baarayay dhaqdhaqaaqa iyo caadooyinka kaneecada ugu yaraan 400,000 ayaa naftooda ku waayay cudurka malaariyada sanadkii 2016 laakiin dadka qaar ayaa ka walaacsan saamaynta ay yeelan doonto wax ka beddelidda hidisidaha cayayaanka markana waa barnaamijkii tiknoolajiyadda ee Click iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil muuqaalkan cajiibka ah waxaa lagu qaaday kamara diiraddeeda laga sameeyey baraf sawir qaaduhu waxa uu tegey Iceland si uu u helo baraf badhax tiran muuqaalada midkiiba waa 1 daqiiqo oo keliya inta aanu barafku dhalaalin laakiin waxa uu ku guulaystay inuu qaado sawirro iyo muuqaalo si fiican u muuqda nasiib wanaag wax dhibaato ahi kama ay soo gaadhin barafka dhalaalay kamaradiisa markii ugu horeysay caalamka diyaaradan lahayn duuliye ayaa qaaday dhiig wakhtigii safarku qaadan jiray ayaa dhinmay marka lagu qaaday dhiigii xubnaha kale ee muhiimka ah ee jidhka heer kulaylka ayaa la maarayn karaa tijaabo la sameeyeyna 80 daqiiqo ayaa hore loo mariyey wakhtigii caadiyan safarkaasi qaadan jiray muraayadan kama muuqdaan waxaan caadi ahayn laakiin waxaa la shidi karaa diirad ku taalla halka hoose si aad u aragto waxyaabaha ku dhowdhow qaybta hore ee muraayadda ayaa isbeddeshaha taas oo keenta in wax araggu isbeddelo qofka xidha muraayadan aragga ayaa u soo dhowaanaya marka aad taabato diiradda kadibna marka aad diiradda mar kale taabato caadi ayay ku noqonaysaa shirkadda Touch Focus ayaana Jabaan ku samaysay iminkana eeg diyaaradan yar ee droonka ah diyaaradan oo ay samaysay shirkadda Fly Crow Tug waxa ay qaadi kartaa alaabada yaryar oo 40 jeer leeg miisaankeeda jaamacadda Stanford University oo ku taala California waxa ay sheegtay in diyaaradan loo isticmaali karo marka la sameynayo hawlaha samata bixinta si loogu caawiyo dadka dhibaatooyinka soo gaadhaan biyana ay uga qaadi karto alaabada yaryarna ay u qaadi karto ugu dambeyntiina waxaan idinkaga tegaynaa sawiradan qof isku qaaday saraha dhaadheer ee magaalada tan London ninkan oo la yiraahdo Spider-Man-kii Faransiiska waxa uu sameynayaa fuulitaan uu fuulayo mid ka mid ah saraha ugu dhaadheer London Alien Robert ayaa fuulay dhismahaasi oo dhererkiisu yahay 202 mitir isagoo oo aan wadan xarko ama biraha lagu qabsado darbiyada laakiin muddo dambe aan fuuli doono sababtoo ah waxa lagu soo oogay dacwad ah in uu dhibaato shacabka u keenay inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa waad ku mahadsantihiin daawadayaal inta aanu mar kale dib u kulmayno habeenka isniinta waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan